qaraxyo si weyn looga maqlay inta badan xaafadaha magaalada Kalkacayo ayaa saakay lagu weeraray xarun ku taalo koonfurta magaalada Kalkacayo. gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu weeraray xaruntan oo uu leeyahay nin horey u soo bandhigay sawir uu ku tilmaamayo inuu yahay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee kaasoo lagu magacaabi jiray Cabdiweli Sheekh Cali Cilmiyare oo aad looga yaqiin baraha bulshada iyo guud ahaan geyga Soomaaliya. qaraxan ayaa waxaa xigay dabley hubeysan oo gudaha u gashay xaruntan oo xilligii la weeraray ay ku sugnaayeen ku dhawaad 100 dhalinyaro ah oo lagu sheegay in ay xirta wadaadkan. dableydan ayaa la soo sheegay in iskoorimaad ay kala kulantay ciidan ku sugnaa xaruntaasi oo ilaalo u ahaa wadaadka iyadoo markii dambana ay gaareen ciidamo ka socda maamulka Galmudug. qarax labaad oo loo maleynayo in loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa isla goobtaasi ka dhacay intii uu iskoorimaadkaasi socday. ciidamada sida gaarka u tababaran ee Galmudug ayaa la sheegayaa inay soo afjareen dableydii gudaha u gashay xaruntaasi. wariyaasha magaalada Kalkacayo ku sugan ayaa soo tabinaya in dableydaasi ay toogasho ka geystay gudaha xarunta dadka ay dileena waxa la xaqiijiyay inuu ku jiro Sheekh Cabdiweli Sheekh Cali Cilmiyare. wararka ayaa sheegay in ilaa 20 ruux lagu dilay qaraxyadan iyo weerarka tooska ah oo lagu qaaday dhismaha ku yaala koonfurta magaalada Kalkacayo ee gobolka Mudug. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan iyagoo ku faanay inay beegsadeen daartii koonfurta Kalkacayo oo ku lahaa Sheekh Cabdiweli. hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa war qoraal ah ka soo saaray xilligii wadaadkan la qaarijay uu sawirka ku tilmaamay inuu yahay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxay ku sheegeen inuu ninkaasi diinta ka baxay. gudoomiyaha culimada Sheekh Bashiir Salaad oo shir jaraa'id ka hadlay ayaa yiri culimada waxaa maalmihii ugu dambeeyay soo gaarayay hadallo khatar ah oo ka soo yeerayay nin ku nool magaalada Kalkacayo oo lagu magacaabo Sheekh Cabdiweli Sheekh Cali Cilmiyare waxaana ka mid ah in laga koryeelay salaadihii iyo waajibaadkii diinta kale. haddana waxa uu intaa ku daray in uu soo bandhigay sawir nin la yaqaan magaciisu yahay Bilow Sheekh Xuseen oo uu ku sheegay inuu yahay nabigiisa. wuxuu intaasi ku daray Sheekh Bashiir Salaad culimadu waxa ay cadeynayaan in uu ninkaasi lagu magacaabo Cabdiweli oo ka baxay diinta waayo waxa uu nabinimadii siiyay qof aan ahayn Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. waxaa sidoo kale arinta wadaadkan hore uga hadlay culimo aad u fara badan. ugu dambeynna maamulka Galmudug ayaa ka jawaabay arintaas waxayna soo saareen amar lagu xirayo Sheekh Cabdiweli Sheekh Cilmiyare. wasiir ku-xigeenka amniga Galmudug Mahad Xasan Maxamed ayaa amarkaas bixiyay isla maalinkii labaadna wadaadka waxaa la soo taagay maxkamad ku taal koonfurta Kalkacayo halkaas oo dacwadiisa lagu dhageystay. garsoorka maxkamadaas Sheekh Maxamed Macalin Cali ayaa sheegay in ninka la eedeeyay lagu magacaabo Sheekh Cabdiweli Sheekh Cali Cilmiyare oo maxkamadda hor yimid su'aalo la weydiiyay markii dambena la fasaxay. maalmo dhan baan daba joognay haddana sheekha waan wareysanay wuxuu cadeeyay in arintaasi uu ka bari yahay ayuu yiri garsooraha. wadaadka lagu eedeeyay gefka isna ka hadlay arintan wuxuu beeniyay in uu nin kale uu ku sheegay inuu Nabi Maxamed yahay wuxuuna intaasi ku daray in sawirka uu farta ku fiiqayo uu yahay sheekhiisa lagu magacaabo Maxamed. ninka sawirkiisa la sheegay in uu nabiga yahay ayaa magaciisa lagu sheegay inuu yahay Bilow Sheekh Xuseen. fariin muuqaal ah ayuu Bilow Sheekh Xuseen baraha bulshada dadka muslimiinta ah kula wadaagay wuxuuna yiri waxaan maqlay in sawirkayga Facebook la soo dhigay oo la yiri ninkan baa nabinimo sheegtay. aniga nabinimo ma sheegan mana sheegan doono walaa awlinimo ayaan sheegan. aniga waxaan ahay miskiin daciif ah oo adoomaha Alle ka mid ah.